markii la qiimeynayo dal ama horumar umadeed waxaa laga qiimeeyaa ama laga eegaa dhowr arrimood oo muhiim ah: arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka, arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha iyo midda warshadaha. haddii ay intaasi hagaagto, bulshadaasi waxay gaartay horumar weyn, waxayna ku guulaysatay udub dhexaadka horumarka. sidaas awgeed waxaan u baahannahay aqoon-yahan lagu soo barbaariyey diin jacayl, dad jacayl iyo dad jacayl. waxaan u baahannahay gabar loo diyaariyey inay noqoto hooyadii soo saari lahayd wiilashii iyo gabdhihii hoggaamin lahaa dalkan. waxaan u baahannahay wiil u diyaarsan buuxinta iyo ka soo bixidda booskiisa aabbannimo, maxaa yeelay markii labada waalid mid kasta uu guto waajibkiisa waxaa soo baxaysa bulsho dhisan. waxaan u baahannahay dakhtar lagu soo ababiyey dhimrin iyo diirnixid bukaan iyo mid bulsheedba. uma baahnin dakhtar aad mooddo gaangiistar aan nixin. waxaan u baahannahay ganacsado dalka ku hormariya dhaqaalihiisa iyo xooggiisaba. uma baahnin taajir rayidka ku toogta hantidiisa, cunsiyana badeeco dhacda, kuna dulmiya sicir barar. waxaan u baahannahay askari lagu soo carbiyey difaacista dalka iyo daryeelka bulshada. uma baahnin askari laaluush dhaafsada ammaanadii lagu ogaa. waxaan u baahannahay siyaasi ka warwara mustaqbalka iyo xaaladda taagan ee dalka. uma baahnin siyaasi eegta jeebkiisa iyo danihiisa dhow. dalka iyo dadkuba waxay u baahan yihiin bulsho dhan walba iska dhammaystirta oo dhowrta diinteeda, dhaqaalaheeda, siyaasaddeeda iyo arrimaheeda bulsheedba. soomaaliya oo samaataan rabbow ku weydiisanay.